Soomaaliya waxa ay ka mid tahay dalalka saamaynta weyn ay ku yeesheen colaadaha sokeey. 1991dii waxa ay bilow u ahayd waayo adag oo dadka Soomaaliyeed ay soo mareen. Burbur baahay ayaa bulshada ku qabsaday meel walba. Dagaalada Soomaaliya waqtiga ka bilowday waxa ay horseedeen kala fogaansho qoys oo waxa qaxay dhacay uu kala fogeeyay qoysas kala tagidooda ay horay u adkeed, laakiin kala orodka colaadeed ayaa ruuxba meel u tuuray. Rakaca colaadeed intii uu socday waxa sidoo kale Soomaaliya ku dhuftay abaar aad u darnaa, kuwaasi oo iyana keenay macluul baahday iyo cunto yari. Meelaha qaybtoodna waxa ay horseedeen dhimasho, dad badanna way barakiciyeen. Dhibaatooyinka gudaha dalka ka socday waxa u dheeraa Soomaalida xanibaadaha caalamiga ee la saarayay dalka, maadaama dawladdii dhexe ay meesha ka baxday, waxna taasi ay sii adkeeyeen nolosha iyo sidoo kale xaaladii adkeyd ee dhaqaale ee ay dadku ku jireen. Kolka nabadda iyo nidaam hirgala baahidii loo qabay laga yimaado, waxaa sida aynu xusnay baahi weyn loo qabay nidaam dhaqaale oo dadka kala yaacay ay taakula isugu fidin karaan. Abaaraha baahay kuwa ay ku dhaceenna gurmad dhaqaale loogu samayn karo, dunida xanibaadaha dhaqaale ay dalkan dawlad la'aanta noqday ay saartayna ka dhex shaqayn karaan. Baahidaasi waa halka ay ka timid fikradda hirgashay ay ku dhisan yahay bangiga IBS Bangi oo ah bangigii ugu horreeyay oo heer caalami ah oo dalka laga hirgaliyo. sababtii keentay ama baahidii keentay in bangiga la asaaso oo ay ku fakaraan shareholders inay bangiga asaasaan waxay ahayd saad ogtahabade sidii burburku u dhacay dhaqaalaha Soomaaliya waxa hogaamin jiray ama hogaaminaya ilaa maantaba private sector isaga isku tashaday. waxaa abuurmay xawaalado adduunka dadkii daafaha adduunka u kala qaxay ee Soomaaliyeed si ay financially waddanka ugu xirnaadaan. xawaaladahaasi ku xirnaayeen waad ogtihiin xawaaladuhu waxay leeyihiin ilaa xad ay baahida financialka ama baahida dhaqaale ee Soomaaliyeed ayaan buuxin karin. adduunku system wuxuu ku shaqeeyaa financial isku xiran. Soomaaliya marka bah kama aan ahayn bahdaas adduunka ee dhaqaalaha ama financial. shareholderska IBS waxay ka fakareen marka in waa marka koowaad ee bal qaabka adduunka la isugu xiri lahaa iyo Soomaaliya inay buuxiyaan. dhinaca kale in dhinaca financialka la casriyeeyo. baahidaasaa keentay inaan IBS abuurno. Markii ay hirgashay fikradda uu ku dhismay bangiga IBS Bangi waxa abuurmay jawi rajo, waxay ahayd tallaabo baahi weyn loo qabay oo hirgal noqotay. Tallaabadaasina sida kaliya oo ay ku shaqayn kartay waxa uu ahaa inay buuxiso fikraddu baahidii ay ku timid oo ay isbeddelo la taaban karo ay ku samayso baahidii nidaam dhaqaale ee dalka ka jirtay. waxaa laga bilaabay adeegyada bangiga hirgelinta nidaamka Swiftiga oo ah nidaam caalami ah oo daboolay baahiyihii ganacsi ee ay qabeen ganacsatada Soomaaliyeed, kaasi oo u fududeeyay in lacagaha si toos ah ay ku gaarsiin karaan wadamada ay la leeyihiin xiriirada ganacsi dhaqaale. adeegga Swiftigu waxa uu noqday nidaam dhaqaale oo ganacsatada iyo dib u dhiska dalka labadaba horumarkooda saameyn weyn ku yeeshay. anagoo baahidaas buuxinayna markaan IBS abuurnay wuxuu noqday after Central Bank oo Soomaaliya bangigii koowaad ee ganacsi Swift International toos ugu xirma. lacagaha ay dibadda u dirayaan oo ah sida degdega u gaarsiiya. sidoo kale dhinaca ardada dibadda jirta oo Soomaaliyeed waalidiintii waxay ka saaciday IBS Bank in lacagahoodii ayagoo isticmaalaya Swiftiga in ay ku gaarsiiyaan waxbarashadii dibadda laga baranayay ee u fududaato in jaamacadii adduunka lagu gaaro qaabka technology-ga oo Swiftiga ah. sidoo kale IBS Bank waxay xiriir la leedahay xawaalada caalamiga. sidoo kale xawaaladahaas caalamiga ayadana waxay fududeysay in qurbo joogta amba dadka qurbaha ku nool ee Soomaaliyeed sida ognahay Soomaaliya waxay ku tiirsaneed xilligii burburka dadka qurbo joogta ah in ay xawaaladahaas caalamiga lacag inay ka soo diraan IBS ay ku soo gaarsiiyaan familidooda, qaarkoodna ay ku sameeyaan maalgashiyo waddanka gudihiisa ah. marka sidaas ay IBS ugu dabooshay dhammaan baahiyihii jiray. IBS Bank fikrad ahaan sida ay u dhisan tahay waa in qayb ay ka noqdaan dib u dhiska bulsho, dhaqaale nololeed iyo dalnimo ee dalka iyo dadka Soomaaliyeed. si taa loo gaarana marka laga yimaado fududeynta dhaqaale iyo abuuridda nidaam dhaqaale oo caalami ah, waxa iyaduna jirtay baahi kale oo weli jirta, taasoo ah in dib u maalgelin lagu sameeyo qayb walba oo nolosha ka mid ah. haddii ay noqoto waxbarasho, ganacsi, caafimaad, dhismayaal iyo xitaa kaabayaasha dhaqaalaha. waxaana bangigu isaga oo ka tisqaadaya baahiyaha uu fuliya adeegyo ay ka mid yihiin corporate bank oo ah adeeg si gaar ah ugu adeega shirkadaha waaweyn iyo ganacsiyada lafdhabarta u ah dhaqaalaha dalka.
waxna uu siiyaa ganacsiyada waaweyn fursad ay ku heli karaan maalgelin iyo adeegyo caalami ah si ay u kobciyaan una horumariyaan ganacsigooda. IBS Bank horta wuxuu la macaamilaa sectors kala duwan oo aad u waaweyn sida hay'adaha government oo kale, hay'adaha internationalka iyo diblomaasiyadda, NGO-yada kala duwan oo UN-ka ku jiro. Waxaan kaloo la macaamilnaa agribusiness oo la isku dhaho beeraha, xoolaha iyo kalluumaysiga. Waxaan la macaamilnaa kale trade-ka oo la isku dhaho export and import labadaba sameeya oo wadanka wax keena ayaa la macaamilnaa. Runtii bilowga bangiga ama hayaankiisa ugu horeeya departmentigan oo corporate waxay ahayd sector department ugu xoogan oo adeegaysay dadka high value oo aad u weyn shirkadaha waaweyn ka soo sheegnaba. waxaa ogtahay in IBS uu aad uga shaqeeyay dadka hal abuurka wada oo ama dhalinyaro ha noqdaan ama dumar ha noqdaan ama dad kale ha noqdaan inuu dhiirigeliyo runtii culture-ka bangiyada wax kale ku soo kordhin haddaan nahay bahda reer IBS waa marka koowaad bangi waxaa tegi jiray nin uu haystaa ama xoolo haysta, laakiin annaga waxaa ku soo kordhinay culture-ka bangiyada in midaan waxay saraataa bangiga imaado si uu hal abuurkiisa ugu helo maalgelin. runtii IBS Bank qaabka maalgelinta u bixino waa dhowr nooc oo kala duwan. waxaan siinaa adeegyada kala duwan oo maalgelin ganacsatada Soomaaliyeed, kuwa waaweyn iyo kuwa dhexe iyo kuwa hooseba. adeegyada aan bixino sida caadiga maadaama IBS tahay bank islaami ah, waxyaabaha ugu weyn productyada aan bixino waxaa kamid ah adeegyada loo yaqaano muraabaxada, mudaarabada iyo mushaarakada. waxyaabaha kale oo bangiga adeegyada uu bixiyo waxaa kamid ah adeegyada loo yaqaano LG-ga oo qaybaha kala duwan, LG-ga oo wadanka ka shaqeeyo, iyo LC-ga oo ah ganacsatada Soomaaliyeed lagu faa'iideeyo. waxaa jirto ganacsatada badan oo Soomaaliyeed oo bangigu uu taageeray oo ganacsigooda uu ka soo bilaabay meesha aadka ugu hooseysay oo startup-ka haddana uu gaarsiiyey ilaa company oo corporate ah. sidoo kale waxa uu bixiyaa bangigu adeegyada microfinance kuwaas oo lagu taageero dadka danyarta ah si loo siiyo maalgelinno ay noloshooda ku bedeli karaan. maalgelinta IBS Bank uu sameeyana waxa ay daaran tahay daboolidda baahiyaha dalka ka jira, waana shaqo bilowgeedii ilaa hadda la arki karo isbedelada guulaystay ee laga dhaxlay, gaar ahaanna maalgelinta ganacsatada yaryar oo qayb weyn ka ah bulaalidda dhaqaale ee dalka. bangiga IBS horumar ballaaran ayuu gaarsiiyey ganacsiyada, gaar ahaan kuwa yaryar iyo kuwa dhexe. waxaa jira kobac ballaaran oo ku yimid iyo saameyn ballaaran oo ganacsiyo fara badan oo suuqyada waddanka oo idil saameyn ah uu ku leeyahay bangiga. waxaa jiraan ganacsiyo aan kala soo bilownay heerka ugu hooseeya oo aan siinay maalgelino yaryar, maantana ganacsiyadaasi leh xarumo ballaaran. bangiga si qaas ah waxaa jirto wax la yidhaahdo SME Banking Department oo loogu talagalay in ganacsiyadaasi yaryar iyo kuwa dhexe ay kobciso, siiso maalgelin, siiso tababarooyin, siiso maxaa la yidhaahdaa kaalmo. taasi oo maanta saameynteedii laga arki karo dhaqaalaha waddanka guud, gaar ahaan bangigu eriyada uu joogo. IBS Bank waxa sidoo kale uu maalgelin uu ku sameeyaa real estate-ka dalka si uu uga qayb noqdo dib u dhiska dalka. waxa uu banku maalgeliyay deegaano ay ka mid yihiin Jasiira Estate oo ah xaafada casri oo u jirta garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho 4 kilomitir, Safari Village oo iyana deegaan dhammaystiran ah oo casri ah oo laga dhisay meel u jirta 2 kilomitir ex control afgooye Muqdisho, iyo sidoo kale abaartimentiyada Safari Kow iyo Safari Lab. waxay ogtahay caasimaddu markii soo laabatay ama habdhaqankan wuxuu iska guryo villooyin ah. caasimaddu waxay noqotay magaalo aad u ballaaran, aad u kobcaysa, maxaa la yiraahdaa aad u ballaaranaysa. sida aad ogtahaba dhinacan human capitalka ama kobacan dhinaca bini'aadanka wuxuu ka horeeyaa wadamo fara badan buu ka horeeyaa. baahidaas waxay abuuraysaa marka dhimaan waxay abuuraysaa ama baahi waxay abuuraysaa deegaankii ah, deegaan amoodhabal ah, casri ah, maxaa la yiraahdaa la dhiiran karo. banku marka soo arrimahaas u qumaaya ayuu xoogga saaray inuu baahidaas qayb ka mida buuxiyo. sidaad ogtahaba apartmentskii ugu horreeyey Muqdisho oo ugu caansanaa
maalinta aan dhisaynay dad badan waaba nala yaabanayeenba oo waxaa la lahaa iyaha waay qof hordegaya laakiin maanta falilah alxamdu 10 sano kadib waxaa arkaysaa in magaalada dhammayd ay nagu dayatay high rise noqotay runtii maxaa la yidhaahdaa kobcayso korayso. IBS bangi maadaama uu yahay bangigii koowaad ee caalamiga oo dalka laga furo waxa isagoo oo fulinaya yoolashiisa qaar ka mid ah uu daafuray xilli horeba adeegga kaararka ee Visa kaarka iyo Master kaarka waxaana adeeggan kaararku uu ka caawiyaa dadka Soomaaliyeed la falgelidooda dhaqaale ee caalamka tallaabo guulaysatay weeye taasina waxaana adeeggaas uu arday badan uu ka taageeray kasbashada aqoonta ay yeesheen. bangiga IBS waa bangiga koowaad ee Visa iyo Master kaar ka qaatay ruqsadda mideeda ugu sareysa ugu heerka sareysa ee lagu magacaabo principal waxaana nahay bangiga ugu horeeyay ee dalka keenay adeega Visa card macaamiisha waxaan u soo kordhinay markaan ka hadalno tusaale ahaan dhalinyarada hadda maaragtay aadka maaragtay u isticmaal social media oo kale baahidaas bangiga IBS daboolay wuxuuna ku daboolay asigoo maaragtay ugu faa'iideynaya kaararka anaga aan bixino qofka si fudud ayuu wuxuu ugu xiran karaa PayPal-ka sidaas ayuuna maaragtay hadduu freelancer yahay hadduu Facebook ku isticmaalayo oo lacagaha oo kala soo bixi karaa. haddana waxaan soo kordhinay adeegyada kaarka Dalmar iyo Infinite. kaarka Dalmar iyo Infinite si gaara waxaan u soo kordhinay ganacsatada iyo sidoo kale siyaasiyiinta iyo bulshada Soomaaliyeed kuwooda dalxiiska iyo safarka jecel. adeegan aan soo kordhinay ee Infinite iyo Dalmar waxay leeyihiin exclusive luxury oo macnaheedu tahay in dadkaas ay heli doonaan mudnaan gaar ah iyo xasaanad safar ah. maxaa lagala jeedaa xasaanad safar ah? macnaheedu waxay tahay maanta qofka markuu safro oo hadduusan business class uusan jirno economic jarto transit uu airport ku maro wuxuu ku jectadi doonaa qaybta maaragtay transitka. haddii uu intaas uusan awoodinna waxaa khasabka inuu tigid kale uu jarto oo lacag ku daro si safar dhow oo u galo. intaas hadduu awoodi waaye waa in mataqaanaa uu banaanka u baxo oo kadib hoteelka dib ugu soo noqdo. caqabadahaas bulshada haysatay ayaa kaarkan maaragtay aan u soo kordhino. waxaa cajiib ahaa in maadaama aan markaas adduunka ku biirnay oo adduunku meesha markaa uu maray aan kala qabsannay inaan kaararka qaar caalamiga ah aan East Africa wadamada ku yaalo Kenya ay kamid tahay inaan taa kaararkii casriga uga hormarno qaarkood maadaama aan meesha markaa adduunku marayay aan maxalliga kala qabsannay. saad ogtiin kaararka adduunka suuqa yaala laba shirkado ugu waaweyn uguna caansan hadday noqon lahayd shirkadda Visa iyo hadday noqon lahayd shirkadda Master card. IBS wuxuu ku guuleystay markii inuu maxaa la yiraahdaa bahdaas ballaaran adduunka nuskiis ka badan inay Soomaaliya qayb ka noqoto. waxaa iyaduna fursadaha uu abuuray iyo horumarka uu sameeyey bangigu ka mid ah isballaarintiisa waxaana uu hadda bangigu uu ku leeyahay xarumo badan dalka oo dhan. inaan meel kasto booqac kasto geeyiga Soomaaliyeed ka mid ah aan gaarno adeegida qofka loo dhaweeyo. bangigu wuxuu sameeyay baraanjiyaal fara badan oo gaara ilaa 22 baraanji ayuu sameeyay. baraanjiyadaas marka waxay ka qayb qaateen isfidinta bangiga ka qayb qaateen. baraanjiga ugu horeeyay oo la furo oo bangiga IBS laga furo wuxuu ahaa baraanjigan Xamarweyne ayuu ahaa oo laanta Xamarweyne ayay ahayd baraanjigaas. laantaas runtii waxaa la furay baraanjiga ugu horeeyay oo la furo ahaa kadib bangiga wuxuu ku fiday dhammaan magaalada Muqdisho kadib wuxuu ku sii fiday dhammaan giiga Soomaaliya ee degto dhan. waxaa dhici karaa marka qayb lixaad ayuu ka qaatay isfidinta bangiga baraanjiyada la furay. qaybta saddexaad waxaa oran karaa productyada bangiga oo hayo baraanjiyaal haddii la furo productiya loo baahan yahay ama adeeg oo macaamiisha in loo qabto. adeegga runtii uu IBS hayo oo markaas uu dadka u seef gareynayo siinayo adeeg wuxuu ahaa runtii caalami ah. adeegyada bangigu uu hirgeliyay muddada uu jiray ee 10 sano ana waxaa ka mid ah IBS oo ah hanaan maaliyadeed oo u ogolaanaya macaamiisha bangiga inay ka maamulaan dhaqaalahooda moobiladooda. Ria Money Transfer iyo Western Union oo ah laba hanaan oo caalamiga oo ay dadka Soomaaliyeed heeladooda ay ugu diri karaan lacagaha meel kasta oo ay joogaan iyo adeegyada IBS Mobile Bank oo ah macaamiisha u sahlaya inay moobiladooda ay ka dhex maamulaan akoonnada ay bangiga ku leeyihiin. IBS waxay ka mid tahay bangiyadii burbur kadib waddanka la aasaasay waana bangi ugu horeeyay oo international ah waddanka laga furo. adeegyada ugu horeeyay bangigu soo koray waxaa ka mid ahaa maadaama bangiga fishinkiisa iyo aragtida bangiga ay tahay in wax laga bedelo
dadka sidii u nool yihiin dadka transformation lagu sameeyo nolosha dadka waxay adeegyada la xiriira adeegyada lacagaha sida Swift kaasoo adeeg ugu horeeyay bangigu soo kordhiyo sidoo kale bangigu waxyaabo soo kordhiyo waxaa ka mid ah adeegyada la xiriira deymaha la siiyo ganacsatada yararka ah kaasoo siinaya ganacsatada in kobac dhaqaale ay sameeyaan adeegyada kale oo bangigu soo kordhiyo casriga waxaa ka mid ah adeegyada la xiriira kaararka sida Mastercard iyo Visa card sidoo kale bangigu waxyaabo soo kordhiyo waxaa ka mid ah bulshada Soomaaliyeed ama kastamaradu markay rabaan inay bangi isticmaalaan wuxuu u baahan yahay isticmaalaan bangi ay jooga goobtooda shaqada iyo gobol walba marka idin waxa soo kordhin adeeg la xiriira sida mobile banking kaasoo saamaxaya qofka customer-ka ah inuu bangiga ku xiran yahay habeenii maalin gobol ala goobtooda joogo sidoo kale bangiga waxyaabaha uu soo kordhiyay dhanka adeegyada waxaa ka mid ah adeegyada la xiriira ATM-da kaasoo saamaxay in dadka Soomaaliyeed iyo dadka ajaanibta waddanka imaanaya inay isticmaalaan ama access u helaan lacagahooda ayagoo jooga Soomaaliya sidoo kale bangigu waxyaabo ku shaqeeyo waxaa ka mid ah in kor loo qaado xirfadaha dadka leeyihiin Soomaaliyeed iyo sidoo kale bangigu wuxuu qayb ka yahay dhanka aqoonta sanad kasta bangigu wuxuu taabageliyaa tartamo la xiriira dhanka xifdinta quraanka tartamo la xiriira dhanka scientific maxalada competitionka sidoo kale bangigu wuxuu ga saaraa arrimaha sportska isagoo ah taabageliyaha ugu weyn xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed gaar ahaan waxaan sponsor gareynaa arrimaha xiriirka Somali National League kaasoo liiga ugu sareeya waddanka IBS Bank waa heer caalami oo dunida iyo Soomaalida ayuu xiriir u sameeyay waxana uu sidoo kale abuuray fursado waaweyn oo shaqo abuur ah maadaama uu xiriiriye u yahay dhaqaalaha isbeddelka horumarka iyo horsocoshada dalka iyo dadka fursadaha shaqo ee bangigu uu abuuray waxa uu ku sameeyay qaybtood maalgelinada uu sameeyay ee ka soo bilaabanaya aasaasidda bangiga laftarkiisa ilaa sanadaha tirabeelka wixii uu qabanay IBS Bank waxa uu dunida u leeyahay xiriir aad u waaweyn oo waxtar u ah Soomaalida waxana uu ka qayb noqday munaasabado waaweyn oo caalamka isagoo xiriiro waaweyn la sameeyay dunida si guul loogu gaaro hanaanka maaliyadda dalka bangiga IBS wuxuu xiriir la sameeyay hay'ado fara badan oo caalamka ah kuwaasoo ka shaqeeya dhanka technology-ga ama ICT-ga ama fintech wax loo yaqaano sidoo kale dhanka la xiriira bangiyada bangigu wuxuu xiriir leeyahay bangiyo badan oo caalamka ku yaala sidoo kale bangigu wuxuu xiriir leeyahay hay'ado badan oo ka shaqeeya dhanka horumarinta iyo diplomatic-ga waddanka sidoo kale bangigu wuxuu xiriir leeyahay hay'adaha ka shaqeeya horumarinta iyo sameynta shaqo abuurka dalka bangi walba waxa uu leeyahay marka la fiiriyo sida uu shaqeynayo inaad raacdo standardska kala duwan ee caalamka laga isticmaalo tusaale ahaan IBS Bank waxa uu ka mid yahay ama uu yahay bangigii ugu horeeyay ee international audit waliba auditka adduunka number 1 laga isticmaalo Deloitte maxay heetoy ay audit gareysay waa dareemi kartaa marka international audit oo waliba kambanigii ugu horeeyay ama kambaniga ugu sareeyo auditka uu audit gareynayo ka staff ahaan ama ka bangi ahaan waa inaad u diyaar garowdaa waxyaabo badan oo la isticmaalayo in Deloitte waxayna audit gareynaysay last 10 years kii ugu dambeeyay bangiga taasoo badanaa suurto gelinaysa in bangiyada caalamka ama hay'adaha caalamiga ay ku soo hirtaan IBS Bank runtii maanta bangigu wuxuu taagan yahay meel uu qaan gaaray sidaad ogtahaba bangiga halkuragiisu si ingiriisi u qoran tahay waa ogahay Soomaali badan waa fahmayaan macnaheedu ay tahay kalimaad macnaheedu yahay empowering you marka luqadda qalaad lagu yiraahdo laakiin af Soomaaliga noqonaysa u taagan dhiirigelintaada bangigu wuxuu u taagan yahay dhiirigelinta qof kastoo Soomaaliya aqoonyahan kastoo Soomaaliyeed gabar kastoo Soomaaliyeed iyo maxaa la yiraahdaa wiil kastoo Soomaaliyeed aabba kastoo Soomaaliyeed hooyo kastoo Soomaaliyeed maxaa la yiraahdaa mas'uul kastoo Soomaaliyeed sida u dhiirigelin lahaa u taagan yahay runtiina shicaarka aan qaadanay waxaan aad uga shaqeynaa haddana bahda IBS inay ficiladeena dhan ka muuqato waxaana rabnaa inaan arrintaas xaqiijino garab istaagnana maxaa la yiraahdaa qof kasta Soomaaliyeed oo xulum noocaas uu ku jiro waxaan u taaganahay dhiirigelinteena IBS Bank waa halyay aamusan oo dalka u dhashay xilli loo baahnaa jirayana inta baahi dhaqaale ay jirto